waxaa weli ka socda xarunta qaramada midoobay ee New York kulamada ay madaxda caalamku ku gorfaynayaan arrimaha xasaasiga ah ee ka taagan caalamka xilligan. maalnimadii Jimcaha ee taariikhdu ahayd 24 Sebtembar ayaa arrimaha ugu badan ee laga hadlay waxa ugu weynaa nabadda iyo ammaanka adduunka, iyadoo si aad isha loo saaray dagaalada ka holcaya meelo ka mid ah dunida iyo saameynta ay ku yeelan karaan caalamka intiisa kale. madaxdii ka hadashay halkaas ayaa siyaabo kala duwan iyagu uga hadlay arrintaas iyo sida ay hay'adaha qaramada midoobay gaar ahaan golaha ammaanku ula tacaalaan arrimaha ammaanka iyo dagaalada ka jira dunida geesaheeda. inta badan madaxdii ka socotay qaaradda Afrika ayaa iyagu dhaleeceyn u soo jeediyay golaha ammaanka. madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa tilmaamay quudarada ay qaaradda Afrika ka qabto qaabka loo qaybiyay xubnaha golaha ammaanka, oo uu sheegay inay cadaalad darro tahay in qaaradda Afrika oo ka kooban 53 dawladood dadkeeduna uu ka badan yahay 1 bilyan aysan xubin ku lahayn golaha joogtada ee ammaanka. isagoo arinta ka hadlayna wuxuu yiri, It is an injustice that the entire continent waa cadaalad darro in guud ahaan qaaradda Afrika oo ka kooban 53 dawladood dadkeeduna uu ka badan yahay 1 bilyan aysan ku yeelan hal xubin golaha ammaanka ee joogtada ah. waxaa isna sidoo kale qaramada midoobay si kulul u dhaleeceeyay madaxweynaha dalka Zimbabwe Roberto Mugabe, oo isagu isweydiiyay sababta ay wadamada horumaray ee caalamka gaar ahaan kuwa haysta awoodda joogtada ah ee diidmada qayaxan ee loo yaqaan veto ay u diidan yihiin in la dimuqraadiyeeyo hay'adaha ay ka kooban tahay qaramada midoobay gaar ahaan golaha ammaanka. wuxuuna isagoo hadlaya yiri, Why are the developed Western countries, especially those permanent members with a veto, resisting? maxay tahay sababta wadamada reer galbeedka ee horumaray gaar ahaan kuwa haysta awoodda joogtada ah ee diidmada qayaxan ay u diidayaan in la dimuqraadiyeeyo hay'adaha qaramada midoobay gaar ahaan golaha ammaanka? soo iyaga ma aha kuwa wax ka sheega dimuqraadiyadda wadanadeena horumarayo, mise waa munaafiqiin uu ficilkoodu ka soo horjeedo waxa ay noo sheegayaan? madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame ayaa isaguna tilmaamay in xubnaha qaramada midoobay ay u qaybsan yihiin 2 urur oo qiimo ahaan kala hooseeya. wuxuuna yiri, It has become clear that the UN has evolved into a two-tier organization. waxaa cad in qaramada midoobay ay u xubsiibatay 2 urur oo kala go'an, kuwaas oo ka turjumaya duni u qaybsan 2 kooxood, mid leh qiimo sare, xuquuq iyo xorriyad, iyo tan kale oo u baahan in wax lagu baro laguna hago qiimahaas. waxayna u muuqataa in wadankaygu iyo wadamada kale ee horumaraya ay ku jiraan kooxda labaad oo dabiiciyan laga xaaraantinimeeyay awoodda, waxaana naloo arkaa inaanu nahay kuwa si weyn u carqaladayn. intaas kadib waxaa iyaduna laga hadlay nabadda dalka Suudaan iyo codbixinta loo qaban doono ay ka tashiga koonfurta dalka Suudaan, iyadoo madaxdii ka socotay labada dhinac ee Suudaan waa xukuumadda Suudaan iyo ismaamulka koonfurta ay labaduba sheegeen inay diyaar u yihiin xaqiijinta qabashada codbixintaas. Umar Abdi Afey, Universal TV, Oslo, Norway.